السلام عليكم أبا ليدين سلامية سومالي محمد ميال كستا أدوك كتشوكتان وولالكين مصطفى ويدين سلامية فيديو نحن نقول دانا فيديو كجوه الرئي يوتيوب كي صوريكو فيديو ما حنا كجاه للدونا سيدا لو نقدا قف شدان أما قف attractive أو مقارنة سادومر كتشعليه إلى ما هذا سوق بنانك مرتد إنه قف بكورنا يو والقروح بدن تعمل الشدان تاي تطبع كده دونا والفال حنت تطبع كده دونا ما قروح بدن dad baa kugu qoran doona oo qurux badan tahay marka qofka qore aaminsan kara taas waa adiga inta muraayada hor tagtid aad eegtid naftaada aaminta naftaada u sheegtid adiga ayaa qurux badan haw samee waxa sameynaysid oo naftaada u sameynaysid haw samee dadka kale ee banaanka ah nafta wax kasta u samee naftaada oo naftaada aaminsida inaad qof qurux badan tahay anagu ma dhahayo qof kasta uu qof faal xun iyo qof qurux badan qof kasta waa ilaahay sibu uumay waana la kala qurux badan yahay waana la kala fool xun yahay waxa arkaysa qof ka dheer waxa arkaysa qof ka gaaban waxa arkaysa qof ka buuran waxa arkaysa qof ka dhuuban waxa arkaysa qof ka qurux badan waxa arkaysa qof ka fool xun marka adduunka lama charge gareeyo dadka bini'aadanka ilaahay baa saa qof kasta u uumay oo abuur alle marka waxaan kan soo gudbinayaa tibka qaabka ugu fudud ee aad ku noqon karto qof shidan ama qof magaranaysa dumarka oo jeclaadaan oo magaranaysa isteela oo xaraga badan oo magaranaysa de caadi aan ahayn oo shidan talabaad markii hore waxaan deganaan jiray magaalo tuulo ah magaalada tuulooyinka dad cadaan ah degan dadka oo isku wada dooq ma aha dadku waa kala dooq ardayda iskuulka la dhigan jiray kulligood cadaanka meelaha social media meelahaas ku arkan internetka facebooka dadka Soomaalidu waa dad ura maydaan kaliya waxay la isticmaalaan ma isagaajiyaan jirkooda waxa soo dhanbay aaminsan meelahaas ka maqleen wax dadka lagu caayo Soomaalida dadka cadaanka way iga carri jireen waxa ma jirin gabadhoonan qarmoon ah oo urayo laakiin taas xaqiiqda ma aha oo magaranaysa qof kasta soo yahay magaranaysa ku xidhan tahay qofka madowga waxay yaqaanaan dad magaranaysa aan nadiifsanayn madowga kalarkaaga ay arkaan waxa maleynay inuu wasakh tahay markaas marka ka soo guuray waxaan soo guuray magaalo weyn ka bacay Soomaali baa ka buuxday dad marka confident-gayga waa high uu tagayo dadku waa dad ugu faraxsan waa dad asxaab waa dad yaqaana waa dad kula kala dad kula diina dadku waa dhex galay wakaas laakiin dadka badanku waxay ka aaminayaan dadka cadaanku waxa aaminsan qofka duumada yahay qof aan meeran qof uska badan qof aan labisan qof aan dhar cusub xiran wax khaldan bay ka aaminsan dadka waliba Soomaalida meelahaas internetka lagu boofiya waxyaabo aan jirno been oo ilaa Soomaalidu waa uraan oo cunto uraan oo qarmoon weeyaan oo ma maydaan waxaas oo Soomaalida meelaha laga sheekeeya waxaasna wax been ma qofka dadka qura bedeli karana waa inaga oo magaranaysa waa inaad nadiifisaa waa inaad nadaafadaada ku taxadirtaa waa inaad kaas ka nadiifisaa waa inaad timaha iska hagaajisaa waa inaad nadaafadaada ku dadaashaa mida kale dadku waxay ku sheegayaan waad fool xun tahay qaabkan baad u egtahay sidan baad u egtahay laga yaabo dadka asxaabta la tahay ama dadka ku dhow ee magaranaysa la cilaaqada tahay inay dadkaasi dad xun yihiin dadkaas la iska bedelaa dad asxaab caadi ah la sameeyo fiican oo kugu jecel waxa tahay ama fool xumo ama qurux badno waxa tahay aan kugu charge garanayn oo magaalada bilaadanimada ka yaqaana saaxiibkaaga weliga fiirso saaxiibkaadu saaxiib wanaagsan yahay laakiin uu saaxiib xun yahay waa inaad iska bedeshaa oo saaxiib wanaagsan adigoo leh gabadhida ugu qaalisan Ferrari ama Rolls Royce gabadhida ugu qaalisan sidaad u keer garan lahayd sidaad u nadiifin lahayd sidaad u hagaajin lahayd ka soo qaad naftaada adigoo sidaas oo kale ah naftaada sida aad u nadiifinaysa gaariga qaaliga uskaga weelaalaysa waa inaad naftaada uskaga weelaalaysayo qof nadiifsan noqotaa oo magaranaysa nadiifisa oo ka warhaysa naftaada oo magaranaysa aad ka warhaysa dadka badanka waxa arkaysa gaari qaali ah wataan marka marka kaba cusub soo iibsatid weegaga ugu horeeyo dhan waad maydhaa way hagaajisaa wasakhda laga ilaaliyaa waa inaad sidaas oo kale naftaada wasakhda uga ilaalisaa badan ogahay ma maydhaan wana shower to halasku ogaado lama kala qurux badnay qubayska basta hore loo yiri wana ragow hala qubaysto imika adiga fiidiyoga kali gareeyay oo doonayna ogaado qaabka loo noqdo qof shidan oo dumarka u soo jiita oo qurux badan saa u noqotid fiidiyoga daabtay anagu kuma dhahayo maxaad u meeran weydo kuma charge gareynayo
laakiin videoga boos karee tag soo qubayso soo noqo kabacdi markaas waa nin qubayska la bato ha la qubaysto maalintii ugu badnaan waa 2 jeer qubaysataa haddaad jiimka aadado kala weynaad marka jiimka soo baxaad qubaysataa waa inaad nadaafadaada ku dadaashaa oo jirkaaga aad nadiifisaa qubaysataa قال لك النظافة بيعرفوا من العباط. شوف أنا قمت من النوم حمام ما يستحمل. شوف عباطي نظافة شوف عباطي. waxay weydiiyaan ilkaaga maxay saa soo dhan ugu caadiya ilkaha nadiifi waa inaad maalintii 3 jeer nadiifisaa ilkaaga 4 jeer xataa nadiifiyad ku darto waa inaad ilkaaga ka warhaysaa oo markasta aad cadayga ku dadaashaa markasta cunto dhamaysato waa inaad ilkaaga cadaydaa waa inaad ilkaaga ku dadaashaa nadaafadooda hadaa ilkaaga wasakh iyo wax ku jirjiraan iyo waxaas wiswis weeya dadku way ka carareen dumarkuna waxa waa ka xanaaqaan lama tusaba xalimooyinka lama tuso waxaas waa in ilkaaga nadaafadaada oo sidaa u cadi waxyaabaha ugu horeeya dumarku ka eegayaan waa ilkaaga hadaa ilkaaga nadaafin weydo wasakh baata mid labaad eyebrownka kuwa maxaa la dhahaa kuwaas Soomaali wax lagu dhahaa garanay laakiin xirimaha hadii waa inaad hagaajisaa maalin labadii week waa inaad mar jartaa xirimaha oo habaysa malaha hadii waxaad u maleyn doontaa waxaan wax ku xiran dadka qaniisiinta iyo dadka gayga ama garanaysaa waa waxa sameeya ma aha waxaan adduunka waa isbedelay waa inaad jirkaaga ka warhaysaa skinkaaga ka warhaysaa is hagaajisaa nadaafadada ku dadaashaa qofka hadii la arko xariijimaanka marsay Soomaalidu waxa yaqaanaan qaniis yahay ma aha qaniis ma aha qofka haduu is nadiifiyo maceeba waa nadaafada ku xiran waan ku xiisan ku salaamay عديته يا ترابسة ما شباب ما جعل محمد الله لا إله إلا نبي محمد دورتي dad badan baa la yaabaysa cidiyahooda arkaysayo uskig bas hawo buuxa qashin wiswis gabiga sidaa cunto cuni kartaa waliba gacantaada ku cuni kartaa adoo cidiyo inta ka horeeyaan oo lagu moodo gabiga xabsi ka soo baxay war cidiyaha iska habaa cidiyaha weena maalintii labada cisho marka war haysa cidiyaha iska jartaa iska habaysa oo magaranaysa hagaajisa cidiyaha weena inta kale marka shower ku jirta cidiyaha nadiifisa oo si fiican u maydha cidiyaha waa meelaha ugu badan ee dumarku eegaan weeyaan cidiyaha hadii raashin iyo wax madow iyo uskag iyo wax wasakh saa ugu jiraan qarmuun baad adiga laftaada oray bakhti baad waa nagala wax aad iska habayso oo aad nadiifiso dagahaaga hadii qashin ka buuxo uskaga oo wax saa ugu jiraan waa inaad labada cisho mar dhagahaagana ka warhaysaa laakiin dhagahaaga hadii urayaan qashin weeyaan waa naftaada u ilaalisaa sida gaariga ugu qaalisan adduunka diyaaradda adduunka ugu qaalisan saad u nadiifin lahayd waa inaad jirkaaga u nadiifsaa ugu warhaysa dhagaha badanka waxba ku jirjira dadku way ku arkayaan marka wadooyinka maraysid qashin baa laga dhex arkaya halkaas waa inaad wax iska nadiifisaa dhagaha qaabka ugu badan ee soo jiidashada dumarka ugu jecel yihiin waxaa kamid ah timahaaga waa inaad raadisaa qaab ay timahaaga kusoo baxayaan oo timo jarista timahaaga u jaratid qof kasta wuxuu leeyahay kala duwanaansho qof kasta timo ka duwan buu leeyahay dadku isku timo maaha laakiin markaad meelaha timo jaraha tagaysa waa inaad ogtahay timahaaga qaabka kusoo baxayaan iyo qaabka ugu fiican yahay aniga tusaale timahayga waa iska yara adayg isku jileec kaalihe waxa u yaqaanaan weeyaan markaas waan aqaanaa timahaaga qaabka kusoo baxayaan timahaaga dhinacyadaas waan jaraa inta sare waan daaya waa inaad timahaaga si fiican aad u jartaa qaabka kusoo baxaysa raadaysaa waa inaad isku daydaa qaab kala duwan kabacdi waxa kusoo baxay ka ugu fiican marka suuqa martid dadku way arkayaan amaanta timo cusub soo jaratay timaha soo xiratay kabacdi fiiri kay dadku ugu jeceliin kabacdi ka ku dhig oo iska bedelin waa dadka timaha ugu jeclaadaan timaha waa inaad labadii week mar iska xirtaa oo markasta timaha ka warhaysa oo raislaha u tagtaa timaha iska habaysa iska jartaa anu kuma oranayo dawada maalin kasta tagtaa dad baan awoodin oo lacag haysan laakiin hadaad awoodo وين الرئيسلات تكتاي تمام ساحة كوجلا مكوجرا جرين مرة يا وايس لا يدي ودبني كود أريا كود أريا بالبيريو من أي قرح ما اقتضى ميقاي وكعس أريا هرتركو فالحمد هذا ما سهلا قركو $6 هذا السو تما أريا كوسو بحايا أو وجهي كوسو بحايا أو كوسود كرينا أو وجهي كوسو بحايا هاو سمين قف خلي أو بلا آذنا تميسات واحد هذا إنترنت هذا مالها يقول هذا نتوهنا كلنا سمستان دنيا نينك قفك هاوي كوسو بحايا لكن هذا نفتا ويدي تماها قفكاس وساو خيرته من كوسو بحايا مسو كوسو بحايا لكن هذا كوسو بحاي اسكدا وانا اورغايسا تماها كوسو بحايا يا قابا و خيرته يا قابا و جرته وانا درaysa muraayad inta eegtid sawir fiiran sawir badan eeg kabacdi qaabka kooso baxaya tijaabi kabacdi laga yaabo in qaab nashqad cusub aad heshid
oo adiga ku gaar oo wejigaaga kusoo baxaya tima kasta ma qof kasta kuma soo baxa dadku way tima kala duwan yihiin qaar baa tima jareera leh qaar baa tima jilicsan leh qaar baa tima kaali heele leh qaar baa xisaabta ku dadsan dadka dhukuran hadduu qofka dhukurayay adigu maga raali noqo hadaad magaranaysa bilaa timan tahay waxaasoo dhan aad sheegaysa wax faa'iida ma tarayn haddaad wejigaaga keer garaynin oo aad ka warhaynin oo routine lahayn waa inaad wejigaaga dhaqdaa habeenkii markaad sararta tegaysid iyo subaxii markaad toostid waa inaad isticmaashaa condition iyo magaranaysaa waxyaaba kariimo wejiga la mariyo dad baa allergic ku leh kariimada oo finan kaa soo saaraya hadda waxaa 2021 lagu jira corona jira maaska markaad xidhatid finan badan baa kaa soo baxaya waa inaad wejigaaga nadaafadooda ku dadaashaa waa inaad markasta maydhaa waa inaad isticmaashaa malab baa saa loo mariyaa wejigaaga finanka iyo waxaasoo kaa qaaday 1 saacadood baa loo daayaa dibnahoo kale sidoo kale faslin baa loo mariyaa haddoo kaa qarqaraxo ku jajabaan waa inaad wejigaa ka warhay social media isticmaalay Instagramka dadkan influencerga lacagta haysta sawirkan waa been waa la edit gareeya waxaasoo waxba kama jiraan waxa aaminin laakiin wejigaaga iyo jirkaaga inaad ka warhayso wax dambi ma leh dadkaasi waa dad business iyo lacag ku raadinaya oo maganasa productiye ku haysin ku dhaaya kana fiican kana wejiga u fiican adigu waa naftaada u raadisaa kan ugu fiican waxa laga yaabaa in product qofku haysan ku dhaw kana fiican kan marso finanku ka baabiinaya ka bacd marka masjid allergic inaad ku leedahay laga yaabaa ka bacd wejiga finanka soo yaacaan wax ku dhacaan imise dumaraan aragnay wejiga haara ka soo baxeen oo balaayo ku dhacdayo finan waaweyn ka soo baxeen oo daweyn loo heli waayo Turkiga balaayo looga carro kharash iyo balaayo isgeliyay marka waa inaad ugu naftaada ogaataa marka hore jirkaaga maxaa door waa inaad biyaha isku dadaasho marka biyaha wejiga kuma edisana biyo qabow ana nacna qulunka kayaati baa iska daldalanaya maxaara wata sameekama anaga nagala cararaya wax walaal loo diiday wad baale walaal waxaan ku soo sheegaya in faa'iido ma sameynayaan haddii aad iska bedelin cuntada aad cunayso oo aad ogaanay cuntada cunayso waa inay يعني دبعته كوكين وين عمتها نظيفة وأنا سليد كوبادنا سليد هذا عمته كوبادنا تفين باي كوكين إسا شيء كهذا عدد وين عمته مقارنة أوفي عن عمتها لكن وين عمتها أوقاتها أنا عمتها سكين كاغي تير كاغي دبعته كوكين سفينا كاسو صاريزو وين أوقاتها عمتها عنيسد إنس قبطان يشير كاغو بيها وين بسطها معنتي 4 لتر 5 لتر تلعب كرت بيها بسو waxay u fiican yihiin jirka iyo wejiga ay u fiican yihiin firanka ka ilaalinayaan biyaha la basado cuntadana ha lagu dadaalo cuntada weyn iska bedeshayo cunto nadiif ah cunta qashin kasta isku guro chocolaatada waxyaabaha soo dhan kulli waxay leeyihiin saliid waxyaabaha saliid lagu kariyo dhan kulli waxa soo dhan sameynaysid nadaafada ilkaha cadeynaysid indhaha hagaajinaysid cidiyaha iska guraysid waxa soo dhan nadaafadaas haddii aadan waxba faa'iido ma sameynayaan no point wax faa'iido ma sameynayaan cunto nadiif ah cunin oo cuntada iska habaynin waa inaad marka goorso cuntada iska bedeshaa cunto nadiif ah cunta ka bacdi waxaan markaas isoo laakiin wax faa'iido ma yeelay dhibaato kale ma kugu sii siyaadinayaan finana way ka soo yaacayaan cuntana fiican ma cunaysid gabagaagu adiga oo gabisa qashin soconaya ba ah marka waa inaad marka goorso saas ka soo bilowda aad cuntada iska bedeshaa cuntada iska bedeshid naftaada bedeshid jiimka wax fiican ku ayaad cunaysaa oo magaranaysaa oo protein leh sida chicken oo kale oo kunto oo kale ayabahaas oo kale fiican saliidda wuxuu noqonayaan ka hadli doono maanta dharkee ayaa kugu soo baxaya dharkee adiga lagugu talagalay ha iska xiran wax kasta oo inaan yaro suuqa marayo xabagla ama gangster ama tuug oo xiran yahay hadday isaga kusoo baxaya isaga kusoo baxayaan haddaad dharkaas isku daydid oo qof xiran yahay dee qof wuxuu sameeyo ma noqonaysa dhar baa jira dadka gangsterka xidhaan oo koor iyo waxyaabo weyn isku guraan waxaad arkaysaa iyadoo cadceedu tahay 30 degree gebiga kulaylka garama dadku garmaan la aasay qof weyn oo koor xiran maxaa koorka ugu raray marka waa inaad raaysaa isteelku soo baxaya hadda halkan ma soo dhigayo qaabka isteelka iyo sawirada la isku hagaajiyo laakiin insha Allah fiidiyada dambe ayaan soo dhigi doonaa insha Allah waxa u baahan tahay kharash oo magaranayna dukaanka tagay noqonaysa dhar soo iibsado insha Allah kaasina video baan doonay insha Allah in fashion ka sameeyo video ku xiga insha Allah aad iyo aad baan salaamaya video-ga wuxuu noqon doonaa video-ga ugu horeeya soo dhiga YouTube-kayga oo aan type toos aan halka u fadhiyo وانا اسكور هاي دونا ان شاء الله يا لا ilaaway subscribe-ka like comment-ga hala soo dhaweeyo nacala shidan ku yaala hala gaarsiiyo 10,000 hala gaarsiiyo ka fadhiga aad iyo aad u mahadsantiid daawashadeena aad iyo aad u mahadsan dadka TikTok iga soo follow gareeyay iga soo raacay halka ay subscribe iyo like ii siiyay aad baan salaam